Onku salaamay daawade. Maxaad kala socotaa xaaladda xun ee ku sugan yihiin shucuubta muslimiinta ee gobolka Xinjiang ee galbeedka Shiinaha ama Turkistan Tabari? Gobolka Xinjiang ee galbeedka waxaa ku nool dadyo muslim ah oo lagu qiyaasay inay yihiin 10 milyan oo qof. Ma awoodaan inay soomaan bisha Ramadaan ee barakaysan, oo waxaa lagu qasbaa inay cunto cunaan marka ay cadceedu soo baxdo. Ma awoodaan inay tukadaan salaadaha faralka, oo lama ogola masaajido in la galo. Sidoo kale qofka galaya waa inuu haystaa kaadh aqoonsi ah oo ay dawladdu siisay inuu tukado. Sidoo kale kuma tukan kartid xaafadaha. Waxa lagu qasbaa inay cunaan hilibka doofaarka iyo hilibka dameeraha. Sidoo kale waxa lagu qasbaa inay cabaan khamriga iyo waxyaabaha diinta Islaamka mamnuuca ka ah. Dhammaan arrimahan iyo kuwo kale oo halkan lagu soo koobi karin waxa ay ku dhacaan shucuubta muslimiinta ee Turkistan Tabari ee ku nool galbeedka Shiinaha. Haddaba shucuubtani waxaa loo beegsanayaa waa islaamnimadooda, sidoo kalena ma ahayn Shiinays dadkani ee waa dad Turki ah. Haddaba qarnigii 19aad ayaa ay shucuubta koonfurta Shiinuhu ee Xinjiang ay ku dhawaaqeen in ay gooni-goosad samaysan doonaan oo ay la bixi doonaan Turkistan Tabari, balse hogaamiyihii Shiinaha xilligaas ayaa ka awood badiyay isla markaana dagaal ku qaaday. xaaladda ay ku sugan yihiin shucuubta muslimiinta ee Uyghurku ma ahayn wax maskaxda bini'aadamka qaadi kara. Dhacdooyinka laga diiwaangeliyay ee ay sheegaan dadyoga ka soo baxsaday gudaha gobolkaasi waxaa ka mid ah in ku dhawaad 1 milyan oo qof oo inta u badan ay yihiin rag lagu hayo xabsi weyn oo laga dhisay gudaha gobolkaas, kaasi oo lagu tilmaamo cilaajka muslimiinta ama cilaajka dadka ka xanuunsanaya maskaxda. Waxaa loo diidan yahay muslimnimadooda, sidoo kale waxaa lagu qasbaa in ay ka noqdaan diinta Islaamka ayna qaataan mabda'a ku shaqayso dawladda Shiinuhu. Shucuubtani waxaa lagu qasbaa in ay guryahooda ku sugnaadaan xilliyada salaada. Sidoo kale waxaa lagu qasbaa inay cunto cunaan xilliyada cadceedu soo baxdo maadaama bisha Ramadaan lagu sugan yahay. Muslimiinta Uyghurku waxyaabaha kale la kulma waxaa ka mid in carruurta yaryar la qaado isla markaana laga fogeeyo waalidkooda, lana baro afka Shiinaha, laguna shubo afkaarta xisbiga maamula gudaha Shiinaha. Waxaa laga tirtiraa in ay bartaan afkooda hooyo ee Uyghurka. Sidan hore soo sheegnay, shucuubta Uyghurku ma ahayn dad Shiinays ah isla markaana Shiinaha u dhashay, ee waa shucuub ku nool galbeedka Shiinaha isla markaana ah dad Turki ah oo asalkoodu yahay Turki isla markaana muslimiin ah. Xerooyin badan oo ay ku jiraan shucuubta Uyghurku ayaa ay dhawaan BBC-du daah qaaday. Sidoo kale waxaa la sheegaa inay jiraan xarumo kale oo isla imiga la ogeyn meesha ay ku yaalaan, balse lagu cadaabo muslimiinta Uyghurka. waxaana looga baryanaa inuu Ilaahay u furo albaabka raxmadda muslimiinta Uyghurka ee ku nool Turkistan Tabari. Daawadood kuma santi daawashada muuqaalka.